Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta halkan waxaan kula wadaagayaa application kaa caawinaya inaad qoraal u bedeshid cod text to speech. Marka wuxuu ka caawinaya youtubera qaar waxaa jiraan aan soo dhigin codkooda iyo muuqaalkooda. Muuqaalo free ay kala soo degayeen application muuqaalan ka soo daawan kartaa sida Pixabay iyo Pixel ay kala soo degayeen application muuqaal free ah. Marka muuqaalkaas waa free, copyright ma lahan. Marka si xayeysiin ku saarto waa inaa cod kor saartaa, codkaada ha ahaado ama cod robot ha ahaado. Marka application-ka waxaad ka caawinayaa inaa cod aad kor saartid adigoonan codkaada isticmaaleynin. Qoraal ayaa qoraysaa ingiriis ah sida ogtiin af Soomaali mostly kuma shaqeeyo, kuma fiicna. Marka af Soomaali si fiican u aqrinaya, marka ingiriis markaa qorto wuxuu u bedelayaa cod sida ogtiin. Marka codkaas oo kor saaraysa muuqaalka oo hadhowna ka caawinaya muuqaalada inaad lacag ka soo geliso. Haddii kale reuse lagugu qabanayaa oo ah muuqaalaha free waaye laakiin cod kor saarto waa muhiim. Wax copyright markii lagu qabsanayo YouTube sidoo ku gelisid laakiin hadhow xayeysiin ma saari kartid, waa lagu diidayaa. Marka sidaa darteed wuxuu ka caawinayaa adigoona codkaada duubin muuqaalahaas la soo degaysaa, qoraalkan ayaa qoraysaa si toos ah kugu noqonaya marka voice. Marka ma u baahnid inaad codkaada duubtid ama aad muuqaalkaaga dhigtid. Marka isla socono muuqaalka ilaa dhamaadka xiiseynaysa barnaamijkaas. Marka channelkan subscribe inoo saar, gambaleelkana furta si ay kusoo gaaraan muuqaalaha halkan soo gelin. Barnaamijka aan guda galno. Application-ka isticmaali doono waxaa la yiraahdaa CapCut. Haddaadan aqaanin, CapCut waa application oo editing app ah oo muuqaala lagu edit garaysto. Application kale way jiraan oo voice to speech to voice oo u bedelaya qoraalkaada cod. Laakiin dhibaatada jirta ayaa ah kulli waxaa qaab robot waaye. Marka inuu machine yahay waa laga dareemaa, laakiin kanay bil'aadana loo maleynayaa lagama dareemayo. In adiga iska duubto codkaada oo ingiriis ku hadlayo lagu maleynayaa. Marka application-kan muuqaalaha iska edit garaysani, codkana waa saari adoo application kale aan la soo degin. Asaga ku edit garayn, asaga cod ku suubsani dhac wax walba. Marka waa idin tusinaya waa kana application-ka CapCut la yiraahdaa. Waa la soo degi kartaa Play Store ku jira. Marka aan furno application-ka. Application-ka soo furtid halkan page-kan ay imanaysaa. Marka halkaas ku dhufan. Marka horeysa calaamadan ku dhufanaysa waa inaad muuqaal soo geliso. Mesela muuqaal uu ahaado halkaan iska soo qaadanaynaa. Mesela muuqaalkan iska soo gelinaynaa. Muuqaalkan marka rabtaa inaad cod kor saarto ma halkan text ku dhufanaysaa. Waa ila socotaan aan jeclahay. Halkan add text leedahay. Marka halkan qoraal ku qoraynaa. Thanks for your support my fans. I highly appreciate. Waxaan dhahay oo kuma adsantiin sidaas aad igu garab gasheen. Af Soomaaliga isku yar fiicneen Ingiriiska la waan inkiga mahad celinaa ku dhahay. Marka halkaan ku dhufanayaa sa arkaysaan. Marka halkaan ku dhufto marka sidaan markuu yahay bedelka halkaan ku dhufanay marka waxaad tagaysaa halkaas ku dhufanaysaa. Marka halkaan ku soo falisa arkay halka meesha ay ku qoran ay ku qoran text to speech hoosteeda ay ku qoran halkaan ku dhufanaysaa. Waa calaamadan delete tan ka dambaysa. Marka halkaas ku dhufto saan u loo dhigarayna marka codka aad dooran lahayd haddaan naag rabto haddaan nin rabto ayaad ka dooranaysaa. At the same time qoraalkan meeshaan ayuu yeeli karaa. Haddaad rabto waa qarin kartaa qoraalka. Waa idin tusinaya horta waa idin tusinaya kikala. Marka meeshaan u horeyso waxaa waa charming female ku dhuf kasoo ku dhufanayna aragna. Thanks for your support, my funds. I highly appreciate. aragteen aan jeclahay. Tan labaad aan fiirinaynaa haddana. Tan labaad waxaa waa nin arkayna
Thanks for your support. My funds I highly appreciate. aragteen aan jeclahay narrative female marka codkii kula fiican Thanks for your support. My funds I highly appreciate. codkii kula fiican aa qaadanaysaa marka kulli waa ku dhufanaysaa kii kula fiican Thanks for your support. My funds I highly appreciate. Thanks for your support. My funds I highly appreciate. Thanks for your support. My funds I highly appreciate. anakana qof iila eg Thanks for your support. My funds I highly appreciate. kaasaa dad u eg bilaadan waa isticmaali kartaa kii kula fiicnaada qaadanaysa halkaana ku dhufanaysaa marka voicekaada marka waa lagu generate garaynaa text to speech now available saa arkaysa marka halkan coodaa fuulo textigan haddaa qaadi rabto meel aad saari rabto halkaana saaraysaa haddaa rabto qarin rabto totally halkaana ku dhufanaysaa marka waxaa highlight garaynaysaa marka horeysa textigi halkaana ku dhufanaysaa stylesa kusii dhufanaysaa aa qarinaysaa saa arkaysa aa qarsooma halkaana ku dhufanaysaa marka sidaas marka textiga waa ku qarsooma codka bisa ma fuulnaana meesha arkaysaan haddaa codka meel aad saari rabto meel aad ka qaadi rabto aad gaal u yar wadi rabto first horeysa halkaana ku dhufanaysaa saa arkaysaan marka halkaana taabanaysaa gadaala u wadaysaa meesha rabtaa saaranaysa halkan mase halkan at the same time textiga waa iska delete garayn kartaa totally waayo codkiisu haysataa mogta iska delete garayn kartaa marka aan shidna muuqaalka waa idin siinayaa hadda waxaan soo qaadanay kii ninka ahay Thanks for your support. My funds I highly appreciate. marka waa kaasaa muuqaalkaas si toos oo la degeysaa marka hadda waxaan qoray qoraal yaraan qoray saa arkaysaan laakiin qoraal badan waa qori kartaa kulli wada cod ah haddaa u baahanta aday kugu xiranta marka sidaasaa loo suubsadaa adoo applicationka isticmaalaya at the same time muuqaalaha ku edit garaysani marka application ugu fudud waana halkan watermark uu kuleeyahay watermark waa iska delete garayni si toosa marka download u leedahay halkan ku dhufanaysaa waa dhammaatiba aan jeclaa waa iga faa'iideen marka channelkan ha hilmaamin inaad subscribe saartiin intaan kulmi doono muuqaalka khayra in rajeynaya